السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد السلام أصحاب تشرفت لما القصة كنا شهين وأنيجي أو مر لباد مر صدحات كسو نقضي waxay ku xun tahay محاولة wiil دها يوتيوب كا مركا إن ومعجزة وأرين لياب له و I think الدعوين sometimes دعاء لكن dadka isqaba ma u malayn jirin anigu inay ka dhex dhacdo laakiin maanta waxaa dhacday qof walba inuu xaaraan cunay booli cunay oo dadkii xitaa isqabay caruuraha isku dhalay waxyaalaha aan ilaahay u banaynin yacni ay ku kaceen dad dileen dad jeceen everything so mucjisooyinka ilaahay ayay ka mid tahay in dadkii isqabay ayagoo xaajoonaya ay isku dhagaan khaladaadka macnaha bini-aadanku geystayna ka mid tahay awoodda ilaahay bayna isugu dhagaan dadka wiilka iyo gabadha awoodda alla dartiis iskugu dhagay iyaga oo isku galmoonaya maanta qaraacanka halkan ka jira ma aha mid hadal kaliya lagu soo koobi karo subxaanallah galabnimadii maanta kaam ku yaala bannaanka hore meel u dhow tabeelaha Sheekh Ibraahim ee deegaanka Weedow waxaa ka dhacday dhacdo ilaa iyo hadda dadkii ay kaam markaa maqashid waxay u malaynaysaa xiro qaxooti inay tahay meel qaxootiga lagu xanaaneeyo laakiin Soomaaliya dhexdeeda waxay leedahay meel qaxooti oo qaxootiga lagu xanaaneeyo guriyo qaar wanaagsanna waa ku jiraan Soomaaliya kaam ay u qaadan laayihiin wiil iyo gabar kamida dadka ku nool kaamka Abu Ihsaan ayaa mar qura qayla dhaan ka soo yeertay iyagoo u dadwacanaya una sheegaya in labadoodii xubnood ay isku dhagtay markii hore cidima aysan rumaysan qayladooda ka soo dhex yeeraysay aqalka cooshada ka samaysan balse markii xigtay waxay dantii gaarsiisay inay bannaanka u soo baxaan iyagoo qaybna ka dadan qaybna ay cooradoodu bannaan tahay سبحان الله حسبنا الله ونعم الوكيل إلهي وأذان كبرنا يا نقولين أنا جي أنت مسلمة ومعناها لا بقف واسقفته يعني واقعيا حمنودي أيا كلا تجي واي كلا بيحي واي سو واقعيا أمدي أي أخيليا معجزة إلهي وأنا معجزة مولن كعمر قادش صوبته dadka isqaba kama dhexdhacdo like I say so xasbunallah wa ni'mal wakiil dadkaana ma qod basiray isku qabeen what happened something qod basiradu waa nikaax adiga aqarsatay aday ku taala qofka la heshiin kartaa waa heshiin kartiin macnaha qofkaas waxa dhacaysa inuu naaqabo uusan rabin naagtiisii maybe naagtan ma rabto dadku inay ogaadaan ninkan inuu qabo so qod basira ayaa dhacaysa inay isku qabaan dadkan laakiin oo kadib sababtay in ay isku soo baxaan dhammaan dadkii ag deganaa kaamkan oo isugu jiray haween caruur iyo odayaal dadka deegaanku inooma xaqiijin in wiilka iyo gabadhu isku dhagay ay isqabeen oo annagana ma xugmin karno hase yeeshee sida aan ka soo xiganay 3 qof oo goobta dhacdada ay ka dhacday tagay goob joogana u ahaa waxay inoo sheegeen in gabadha iyo wiilkuba ku doodayeen oo afkooda laga maqlayay iyaga oo dhahaya khudbad sirro ayaan isku qabnay waxay ahayd arin argagax ku beertay dadkii halkan isugu yimid si qof og malahan wiilka iyo gabadha inay isqabaan iyo in kaleeto laakiin waxa weeyaan labadii qof waxay sheegeen inay isqabaan oo meher qarsoodiya ay isku qabaan marka caruur badan ayaa jirta Soomaaliya ku dhalatay meherkan qarsoodiga oo qodbasirada ah waana jira dad badan ayaa sameeya culimada ayaa qaar sameeysa soo waxa garatay maaha dadkaas culimadaaba u badan sometimes waxa qodbasirada sameeya laakiin waa sax waa jirta ciyaalka ku dhashay waa ciyaal adigoo kala xalaala oo wanaagsan laakiin macnaha ilaahay baa og waxa sababay inay isku dhagaan labadan qof marka waa qudrada ilaahay waxa weeyaan awoodaha ilaahayna waa tiro badan yihiin kow iyo laba lama soo dhihi karo lamana soo koobi karo marka ilaahay ha kala fajiyo labadan qof maxaa la yiraahdaa insha Allah ilaahu ceebteedana cirshaaca ha ka dhigin dad isqaba weeyaan darsna ceeb
oo ku doodaya inay isqabaan laakiin aroontinka wax ceebana meesha taalo laakiin qaylo waa mucjiso. inkaar iyo duco ayaa isbarbar socotay. dadka qaar ayaa wiilka iyo gabadha ku tilmaamayay inay yihiin dhal shaydaan, halka rag u badnaa odayaal ahludiin ahna ay afka ka qaadi waayeen qoolkii eebbe iyo baryada alle. in dadkan sheegaya inay isqabaan haddana isku dhegay uu alle faraj deg si Soomaalidu waa mucjiso, wallahi Soomaalidu waa mucjiso laysku soo diray oon inaba caadi ahayn. waxa weeyaan you don't mala awaal wax aad ku samayn kartid ma lahan, ma mala awaali kartid labada qof inay laba qof oo dhal shaydaan yihiin because kagama dhigin because waxa ka dhaxeeya ma ogid labadan qof, ayaga ayaa og iyo ilaahigii abuurtay. sababtoo ah you cannot xukumay qof, ma xukumi kartid, ma judge gareyn kartid, mana dhihi kartid saas iyo qaladkaasay sameeyeen laba qof oo waxay ahaayeen xaaraan isugu tegay. No, you never know. ma ogid labada qof waxa ka dhaxeeyay relationshipka ka dhaxeeyay waxa isku keenay ma ogid, so waxa garata ma aha. So you cannot say waa dhal shaydaan. waxa weeye kelmadaada adiga laftirkaada aakhiro waa lagu soo istaajinayaa. kelmada dadkaas ayagoo isqaba oo naguma ogin inay isqabaan, laakiin we have to say inay isqabaan oo laba qof oo xalaal culimadii baa u duceynaysa oo ilaahay u baryaysa oo ilaahay labadan qof kala saar dhehaysa. waa xasbunallah wa nicmal wakiil. waxa weeyaan inaa adigu judge garaysid oo xukuntid oo tiraahdid waa laba qof aan isqabinin ma ahan. waxa weeyaan ka jooji, dambiga ka dhaaf, adiguna dambigaada leedahay, ayaguna hadday dambi leeyihin dambigoona day leeyihin. laakiin waa ina aragtid labada qof ama aada og tahay inay ka dhexaysa xumaan, waa inaad laba kaloo markhaati haysid. sababtoo see ku keeni kartaa waa dhal shaydaan, waa dhal saana. stop u ducee, ilaahay u bari, ilaahay inuu kala fujiyo, ilaahay u kala fuji. xasbunallah wa nicma alwakiil. degdega u kala furo. muddo saacad iyo bar oo dhacdadan ay taagneyd waxaa 20 oday oo ka mid ah ragga degan kaamka qur-aankana si wanaagsan u yaqaana la wariyay inay go'aamiyeen in labada dhibane lagu xareeyo qolka cooshada ka culimada quraan u aqrinaysa oo shaqolka laha maxaan dhahaa sometimes miracle dhakhtarka la geeyaa maxaa lubrication iyo wax lagu sameeyo marka ilaahay kala fujiyo. ilaahay ma aragtay waa dib laba qof oo xajadaas qabsatay yacnaha ilaahay u gargaaro. marka please don't judge something you don't know. waxa u ducay kaa mudan yihiin. qof kasta inaa lagu dhego ma aha. Soomaalidu qof kasta in wax ka sheegto ma aha, qof kasta inaa ku dhegtid ma aha. dhibaatadana haysata waxa weeyaan sida aad isugu dhegan tihiin, sida aad xaq darrada u kala galaysiin. joojiya subxaan allah.